waxaan maanta isbarbardhigi doonaa 2020gii guryaha February meeshay marayeen iyo February 2022 meeshay marayeen iyo maanta aan joogno February 2024 guryaha meeshay marayaan iyo lacagta waxaan ku tusi doonaa aad ugu qalmi lahayd 2020 da iibsan lahayd iyo 2022ga iyo 2024ga walaal soo dhow magacaygu waxa la yiraahdaa Daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment iyo wax loo yaqaan personal development waxaan ahay the founder of Sahan Investor waa platform dadka Soomaalida ay ka bartaan real estate investment insha Allah nagu soo boqo sahaninvestor.com haddii rabto inaan arrimaha guryaha ka caawiyo insha Allah waxaad ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com insha Allah video noocan oo saad u aragto na soo follow garee waa in bilaabaya February 2020 guryaha waxay marayeen 275 down payment ka dhigaysa hadan ka soo qaado 10% waxa ku noqon doontaa 27.5 had markaasi rate wuxuu marayay interest rate-ka ama profit-ka waxa taqaano wuxuu marayay 3.5 hadii principal-ki interest-ga ama principal iyo profit-ka la isku daro wuxuu noqon doonaa 1114 guriga hadan ku daro property tax iyo insurance hadan ku daro gurigan oo another 500 extra raacayso so gurigan gabi ahaantiisa wuxuu isku tagi doonaa 1164 laakiin tan ugu fiican gurigani hadaa rabto inaad u qalanto kaliya waxa u baahan tahay inaad samayso $50,000 inaad samayso kaliya u baahan tahay haddana aado February 2022 ga imaado guriyihii korayo kaceen waxay marayaan 350,000 marayaan lacagta down payment-ga waxay noqon doontaa 35,000 oo 10% ah lacagta rate markaan wuxuu marayay 3.73 marayay haddii profit-ki interest-gi waxaan ka wadaa principal-ki interest-ga ama profit waxa dhahdaba wuxuu isku tagi doonaa roughly 1,455 haddaan ku daro property tax insurance aan ku daro another $600 noqon doonaa gurigaas isku tagi doono 2,055 laakiin haddii rabto inaad u qalanto waxaa ugu qalmaysaa $65,000 haddaan imaado February 2024gii guryihii korayo kaceen guryihii waxay marayaan up to 415 to 450 laakiin haddaan ka soo qaado 415 lacagta down payment-ga laga rabo waxay noqon doontaa 41,500 rate-kii korayo u yar korow kacay wuxuu marayaa maanta aan ka hadlayno maanta kula joogo oo February 16 ah aan maanta wuxuu marayaa 5.9 laakiin meelaha qaar waxaan arkaa up to 6.1 6.2 up to 6.75 uu marayo hadda even ka soo qaado kana ugu sarreeya ka soo qaado so gurigaas oo roughly kugu tagi doono 6.75 ka soo qaadaya wuxuu tagi doonaa principal and interest or profit wuxuu tagi doonaa 2,423 haddaan ku daro property tax insurance aan ku daro gurigan oo another $700 raacayso so gurigan isku tagi doono 3,123 laakiin halkan dhibaatada ka taagan tahay guriga hadaa rabto inaad u qalanto waa inaad samaysaa at least $95,000 saadaal arkaysaan lambaradan ka soo bilaabato February 2020gii up to February 2024gii guryahan less than 4 years waxaa ku darsantay qiimaha 140,000 ayuu qofka ka sameynaya hadduu rabo inuu iska sii iibiyo kaliya ma aha waxa kor u kacay lacagtii aad ugu qalmi lahayd ayaa kor u kacday so maxaad isleedahay way noqon doonaan 2028ka kirada saan aniga saadaalinayo waxay tagi doontaa up to $4,000 to $5,000 tagi doontaa 2028ka haddii dowladda ay controlin so dhibaatada waxay ka taagan tahay badanaa dadka Soomaalida aan garanayo waxay sameeyaan lacag ah 2,000 ilaa 3,000 even hadaa ka soo qaado 3,000 qofka sameeyo 3,000 hadaa ugu dhufto times 12 aan dhaho waxay sameeyaan 36,000 ay sameeyaan hadda wiil aan saaxiibkay waxaa jira oo wuxuu degan yahay 3 bedroom 2 bathroom Minneapolis degan yahay so wuxuu ka bixiyaa 2,500 bixiyaa kiro bixiyaa every month bixiyaa so kiradaas oo almost ah 2,500 times 12 dan wuxuu bixiyaa $30,000 oo bixiyaa so haddaan ka soo qaado aan xisaabino dadka Soomaaliyeed average lacagta sameeyaan aan ka soo qaado oo 36,000 ka haddaan ka jiro that 36,000 aan ka jiro 30,000 ka qofka kaliya waxa u harayso lacagta u harayso gabi ahaantiisa waxay noqon doontaa $6,000 so dhibaatada waxay noqonaysaa qofka kaliya inuu shaqeeyo guriga kiradiisa kaliya inuu shaqeeyo oo nolol kale aan lahayn $6,000 ku harta ka waran sanadka dhan maxay ku qabanaysaa hadda caruur leedahay hadii kale so qofkaas wuxuu noqon doonaa inuu dawladda caawiso ama caawinaad kale u helo hadii kale noloshiisa aad u adkaanaysaa waxa kaaga sii daran lacagtan uu bixinayo lacag hanti u dhisaysa ma aha san hadda ku soo tii nabarada ku soo tii dadkii ninkii guriyaha iska lahaa wuxuu ka sameeyay lacag 140,000 buu ka sameeyay laakiin adig guriga aad kiraysato waa qofka lacagta uu ka qaadanaya mortgage-kiisu ku bixinaya lacag wuxuu ka sameynaya cash flow aduu hanti kaasi sameynaya so qof kale hantidiisa ayaa dhisaysa inta hantida dhisan lahayd inaan ku dheeraado ma rabo adigu gaankiin wadi ka imaado way insha Allah hadaa rabto inaad guri iibsato anu waxaa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com hadaa rabto real estate investment inaad baratana waxaa ka soo qaban kartaa sahaninvestor.com. Assalamu alaikum.